السلام عليكم. laga soo bilaabo ololihii Duulay ee ka dhanka ah dawladda Islaamka ee Khawaarizmiyiinta 1219 ilaa 1221 burburinta caasimadda Islaamka ee Baghdad 1258 barakicinta iyo xasuuqa malaayiin muslimiin ah kadib ugu dambeyn waxay noqdeen dawlado Islaam ah waxay dib u dhiseen dhammaan magaalooyinkii Islaamka ee awoowayaashooda burburiyeen sida Baghdad, Bukhara iyo Samarkand iyo magaalooyin kale oo fara badan waxay noqdeen safiiro caalamka bariga galbeed Islaamka gaarsiiya haddaba ma garanaysaa sida mucjisada leh ay ku islaamtay dawladdii Tataarka ee dhiig-gacabka ahayd kadib geeridii hogaamiyihii weynaa ee Genghis Khan 1227 waxaa soo baxay dawlado yaryar oo ka hoos dhisan Mongooliska walow aysan dagaal u dhaxaynin dawladahaasi dawladahaas waxaa ka mid ahaa Chagatai Khanate oo uu aasaasay Chagatai Khan wiilka Genghis Khan 1227 waxaa kaloo ka mid ahaa Golden Horde oo uu aasaasay Jogi Khan wiilka Genghis Khan 1225 El Khanate oo isna aasaasay Hulagu Khan wiilka awoowaha uu ahaa Genghis Khan 1256 iyo ugu dambeyntii boqortooyadii Yuan ee uu aasaasay Kublai Khan 1271 isna waa wiil uu awoowaha u ahaa Genghis Khan marka laga reebo boqortooyadii Yuan oo iyada naftigeeda Islaamka saameyn ku lahaa inta kale saddexda soo hartay waxay noqdeen dawlado Islaam ah kadib geeridii Kublai Khan oo isaga naftigiisa markii hore afgambi kula wareegay boqortooyadii weyneed ee Mongooliska waxaa sii xoogeystay kala qaybsanaanta iyo dagaaladii sokeeye ee u dhaxeeyay reer Genghis Khan dabcan awal buu jiray khilaafka u dhaxeeya boqortooyada tusaale ahaan markii uu Hulagu Khan gumaaday reer Baghdad 1218 dhinaca kale caasimadda Qaraqorum waxaa isku leenahay wiilasha uu awoowaha u ahaa Genghis Khan ee Monkey Khan iyo Arik Boki ugu dambeyntii waxaa xilka afgambi kula wareegay Kublai Khan oo dhimashadiisa kadib dagaalka sii xoogeystay hogaamiyihii Golden Horde ee Barki Khan ayaa meelahaas iyo qooqaasiya ka heleen culummo suufi ah kuwaas oo ugu dambeyntii ku guuleysteen inay islaamiyaan 1252 Barki oo ka careysan burburinta weynaadeerkii Hulagu Khan u geystay khilaafadii Islaamka ee Cabbaasiyiinta iyo xasuuqii reer Baghdad ayaa xulufan u noqday mamaaligtii Masar oo xilliga ahayd dayax soo baxaya dhowr dagaal oo ay la galeen Hulagu Khan kumaysan guuleysan inay dib u qabsadaan magaalada Baghdad laakiin boqortooyadii Hulagu Khan ee El Khanate ayaa iyada naftigeeda ugu dambeyntii noqotay dawlad Islaam ah waxaa islaamay wiilka uu dhalay Hulagu Khan ee Ahmed Tegodar oo caqabad kala kulmay walaalkiisii Abqa Khan oo isaga laftigiisa markii dambe dhashiisa Islaam noqon doonaan sidoo kale waxaa Islaam noqday Mahmud Khazan oo ahaa dhashii Abqa Khan oo dhammaantoodaba iyagoo Islaam wada ah soo xukumay boqortooyadan El Khanate waxaana ka dambeeyay Oljaytu oo ku magac dheeraa Mahmud Khudabandi kaasoo isku dayay inuu qabsado Xijaaz lana baxo qabuuraha Abu Bakr Siddiq iyo Umar bin Khattab radiyallahu anhuma sidoo kale wuxuu olole dagaal ku qaaday Syria oo ay haysteen mamaaligta geeridiisa kadib waxaa xigay wiilkiisii Abu Saciid Bahadur oo dhammaantooda Islaam wada ahaayeen
hogaamiyaashii ugu caansanaa ee boqortooyadan Ilkhanis soo maray waxaa ka mid ahaa Taymurid oo ahaa boqor awood badan kaasoo dagaalo ku qaadi jiray mamaaligtii Masar iyo dowladdii Cismaaniyiinta. sidoo kale wuxuu xabsiga ku dilay suldaankii afraad ee Cismaaniyiinta Bayezidkii koowaad. Taymurid waa awoowaha Suldaan Baabur aasaasihii dowladdii Mughal Empire qaradlamoodkii India. walow ay boqoradan muslimiin wada ahaayeen haddana waxay ahaayeen kuwo dhib badan oo muslimiinta dhib u geysta iyagoo muslimiin ah. haddaba inagee dhinacaas iyo Jakata Khanate. hogaamiyihii Jakata Khanate Mubarak Shah ayaa isna 1666 diinta Islaamka qaatay kaasoo noqonaya hogaamiyihii ugu horeeyay ee Islaamka. sidoo kale hogaamiyaasha Islaamka ee soo maray boqortooyadan Jakata Khanate waxaa ka mid ahaa Alauddin Tarmashrin kaasoo ugu dambeyntii caqiidadiisa dartii loogu dilay magaalada Samarkand. Alauddin waa ninka furtay qaradlamoodka India waxaana xigay Cali Sultan kaasoo baabi'iyay saameynta ay Masiixiyiinta ku lahaayeen Jakata Khanate wuxuuna amray in la daldalo baadarigii Masiixiyiinta ku lahaayeen magaalada Al-Malik. wixii ka dambeeyay Cali Sultan inta badan hogaamiyaashii soo maray Jakata Khanate waxay ahaayeen muslimiin walow ay jireen hogaamiyaal qaar oo muslimiin aan ahayn. dowladdii mamaaligta waxay ahayd tan keliya ee awood ciidan ku hortaagneed wuxuushnimada Tataarka. dhinaca kale waxaa jira culamo Islaam ah kuwaasoo furtay qulubta wuxuushiinta kuwaasoo Islaamka dib ugu soo celiyay magaalooyinkii ay gacantooda ku burburiyeen.